garyaqaanka guud ee Somaliland mudane Cabdisamed Cumar Maal oo warbaahinta kula hadlayay xarunta guud ee ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiiska laba geesoodka ee Somaliland iyo shirkadda DDB World ay ku maalgashanayso dekedda iyo madaarka taasoo muran xoogan iyo maalmahani ka taagnaa isla markaana iftiimiyay qaababka uu sharci ku yahay heshiiskaasi laba geesoodka ee xukuumadda Somaliland la saxeexatay shirkadda DDB World Somaliland macnaha uu sameeyay soo kooban waxa weey aqoonsi مع شرعية المركز اللي هو قوانسي وحكاه صيو وشيء كاسية بيجو صوب طاقة هراء واحد بالبرة الله وذاك عليه الشيء أهين لما الجيو بكذا بالبرة واحد شيء وذاك عليه Somaliland هيو مع تاي شركات أمريكان كمباني انترناشنال أو دي بي أو كرانسا على كمباني Somaliland وذاك عليه إني قوي كسيت طلاب سطحي waxaa galay dawlad iyo dawlad ma inagu oo dawladda Somaliland ba waxa heshiis la galay dawladda Imaaraadka Carabta waa heshiis caalami ah macnaha heshiis caalami ah markaan dawlad la galo dawladda la gashay macnaha uu ku xambaarsan yahay adiga horta hore politically waa recognition wax ka hooseeyo status uu leeyahay waay heshiiska gashay labadiina dawladood buu bind ku noqonaya labadiinaba inaad maartay oo sidoo kale wuxuu garyaqaanka guud ee Somaliland uu tilmaamay in daldaloolo badan ay ka taagan yihiin bangiyada Somaliland iyo xeer ilaalinta guud ee Somaliland sidoo viyabala waa inuu ku leeyahay institution ka shaqeyn kara waa inuu leeyahay bal isaga laftiisa ayaa meelaha inaan outsource gareyn kan u baahanay baki kale oo maartay bank kale oo international inaan hawsha service ka kala ku wareejiyo si maartay dhaqa waayo institutionada jira ma tahay ama xawaalo baa ka noqday dhammaan wax ku wada shaqeynaa dollar kama jira caalam dhammaan xawaaladaha baytuga kooda furay inuu nin dollar bixin karo kuma jiro Ethiopian barbe wada bixiya inaga maxaa lacagteeni ay banaanka ugu wada laalay banki ma tahay waxaan ku leeyahay lahaa ayaa meesha shaqadiisa haya wadaraysa shalay talasamo wax ka qabanaysi maxay yeeday sicirba waa shaqadii bankiin in ka adkeeno waa mid إذا challenge إذا نسوي وحكولنا challenge legal framework مركز لو infrastructure أيوه وإن لو عودنا كاسي شرعية الصيد predictability وإن لو صادالي كريم for example أتذكر أمريكا يتكلم يا مو يوروب قفوا مو بريك الإنسان يفهم ثواني واحد مسنتها هنا حوالها قاسي رضعي واحد مسنتها حوالها قاسي تكوي رئيس حقا يرمي رجاجي system كشرة كرسوري أو جد بحوالها وهلا ينسى سيساسو كلاو دعوة من هذا كأبورنا oo systemkeena sharciye jira uu noqdaa system ma tahay dadka muwaadiniin oo xeerdajintu haydanayde hawsha wax ka qabato qof kasta wanaagsan oo maxkamadda la geeyo waxa ka hor imanaya systemkiiba khariban wixii lagu shaqeynayay aad civil code iyo penal code Hindiya ee 19 ma tahay oo constitution kan wuxuu shaqada siinayaa ma xeerdajintu siinaya marka in xeerarkeeni ما تايم ما administration في education كسو خيانة كعدالة وإن لهرا أو أنا ذات كيلو يشرا system قف أجنبي ومطوي ما دو وعن كرو إن نفيه سيهتي سبب أي سكوت ما تاي كدقين ويشرو لكن ما كانت حير بالهاي السومال لم بالله يدها حير حق عقابته أما مدري وام حبوا كي الصومالي هذا ناتراهو تولدني ما دايما نقول بكتير institution وقع بس نكا وحاول يسكون وشلنا مش غيسي كم kale waxa uu garyaqaanku oo tilmaamay in dawladda tamarta daran ee Soomaaliya aanay nagaga man karin wax dhibaato maamul wanaagan ibina qof ma waa dawladda oo saddexdii laamood waa shacabkii waa ganacsatadii oo private sector-kii waxa isku dhigayba governance leeyahay hadaynan governance ahaan wax wada hortagay oo aynaa wixii horumarka wadankeena caqabad ku aragtay midaysa ka wada lahayn qofkii wax ma qaban karo midda kale كريم كاشيكت أو ما يجرينا مع system في عام system كي هروس بدلي system عصبة يا مع الصومالي